waxyaabaha qoyska noloshiisa gundhiga waa ama inuu sii jiri karo ibticaad afraad al-usrati can al-mukhadaraat qoysku inay ka fogaadaan waxa la yiraahdo maandooriyaha qaadka sigaarka tubaakada xashiishada wax kasta oo maanka wax u dhima oo aqliga caadiga wax ka bedela waa balwadaha noocyadooda kala duwan badeecaduna waa kamid laga dhugdhugsiyaa inay qoysku ka durkaan waa waxyaabaha sabab u noqda qoysku inuu burburo markuu mukhadaraadka ka waramayay nabiguna xadiidkii saxiixa wuxuu ku nahaa rasuulullaahi can kulli muskirin wa mufatir nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu diiday wax kasta oo maanka dooriya qofkuna marka dambe qaadira u yeelo tacbaan ku abuura oo shaygu marna marqaan buu ku abuuraa qofka marna wuxuu noqdaa qof kala daato oo daala marka waxaas jirkiisa ka baxo marka wax kasto balwada oo noocaas nabigu umada uu diiday sallallahu alayhi wasallam waxaynu arkaynaa ama hadaynu dib ugu noqono qisa jirta saxiix al-bukhari ku sugan ali ibn abi talib min hadith ali ibn abi talib wuxuu ka waramayaa qisadaasi ay sheegaysaa murugadii ugu weyneyd baa ali uu tilmaamaya sababtay ku soo martay inay ahayd mukhadaraad caa'iladooda dhaxdhacay mandar aragan arkakii ugu naxdin badnaa buu haabuu وعلي بن أبي طالب كورسدي وفاطمة لو مهرية حاسكي سين الرسول صلى الله عليه وسلم ودونا ينو أروست ولبنا فوقي لينتو ولبدا سون صاهري دونا ينو عوسكو سو قاضو كدبنا سدا حاسكي سو كلا قلقلو ومرحلة ده وقفكو حساسي جيها حمان أرورسي وياي حيصد بدن ومركا كبقيو waxa dhacday labadii neef halka jooga baa dumar baa heesay oo khamri baa la cabayo nabiga adeerkii Xamsa waa intii khamriga la xaarantinimay halkan buu ka soo kacayo labadii neef ba waa ka gowracay wuxuu ka soo saarayba beerkiiba waxaan u yimi buu labadii neef doonay inuu raro oo labadiiba gowracayeen oo beerkii banaanka yaalo oo nabi maxamed baan u tagay sallallahu alayhi wasallam aan uga ashkatooday nabiguna uu soo kacay Xamsa uu nimid buur wali waa cabsan yahay waa bedelan yahay nabigi buu hoos iyo kor u eegay markaas wuxuu hal antum illa abidun li aabai maxaa meesha ka joogtaan buur ka maraysa soo aabahay un adooma uma yidin nabigu saa ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam rasuulku waa kii baqday dib u guray ka baxay markuu arkay inaanu caadi ahayn marka waa tusaale bay ka dhigan tahay waxa la yiraahdo mukhadaraadku waa waxyaabaha keeni kara dad qoysku inuu kala kaco taana waxaan filayaa dad badan oo dabadiya gudahaba jooga marka ay arkeen ana caruurteeni inta mukhadaraadka ku ibtilaysan ama la duufsadee mukhadaraadka cabta ama iibsata caruurta kale way ka soocayn sida daraadeed qoyska in laga ilaaliyo deegaanka mukhadaraadka lagu isticmaalayo dadka isticmaalana laga fogeeyo waa arin waajib ah si qoysku aan u kala kicin oo u kala yaacin ee uu u sii jiri karo taa aad baynu aragnay iyo daayarteeni inta jeelun ku jirtay ibtilowday arinta sagaalaad waxa weeye cadamu qatiicati dhawi al-arham waxyaabaha qoysku ku jiri karo waxa kamid ah in laga ilaaliyo la ilaaliyo la dhowro laga badbaado laga durko qaraabo goysnimada وهدي dadka qaraabada ah turkiso oo aad fogeyso intanaad isleedahay ururi ayaa iyana kala yaacaya abtiyaash edooyinki ayayooyinki habaryarihi walaalihi ilmaaderadii wixii waad fogeyso waad firdhisay de macruurtaada ku joogaya cuquba ku dhacayse fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddi'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum ilaahay baa wuxuu waxa u dhowdihiin oo dhaba inaad dal iyo dadba kharibtaan hadii qaraabada goysaan dadka nooca yeelana ilaahay wuu cadhooday subhanahu wa ta'ala oo inda tiro waa dhaga tiray macnaheedu waxa weeye adduun iyo aakhiraba dadkaasi way seegeen xadiis saxiix ah oo ku sugan abi daawud nabigu wuxuu xusay sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa wuxuu faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batatu qaraabada qofka xiriiriya anna waan xiriirin baa ilaahay qofka qaraabada gooyana waan kala daadin doonaa isaga iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa
marka odaygii islaantu waxyaabo ay isku seegi karaan ama ubadku isku seegi karaan waxa kamid ah in dadkii kale ee ilaahay nagu barakayn lahaa marka aynu iyaga xidhiidhino inaguna aynu isxidhiidhin lahayn inaynu goyno taasina waxyaabaha qoyska kale eri kara weey maantana runtii dee daayar badan waxay u baahan yihiin in la rabeeyo ehelkooda la baro si ay qaraabada u xidhiidhin karaan oo maxaynu isu nahaye maxaa iga galayda aanay kaga dayanin shisheeyaha arinta tobnaad waxa weeye alxayaau fi lusra waxyaabuu qoysku ku jiri kara waxaa ka mid a xishoodka in qoysku kala xishoodo caruurta xurmayso waalidka dadka kale jaarka ay ka xishoodaan ummadda ay ka xishoodaan xishoodku qoyska dhexdiisa marka uu yahay mid sameeyo mug iyo miisaan leh oo la isku rabeeyey qoysku waa jiri karaa abi saciid الله كرر للنقضاء وحوليه وحديث بخاري كسقنا كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في قدرها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكحشاد بدنا إن نقولي جودا ونشوكتهم برنامج أو بحين سيدا وحشانيس يسوق رورينيس نبي وكحشاد بدنا سيدا درادات بديدة إيا مايا ويكوات كان شرتوا وحديدة يو وتشيجي سوم لقى آخر السنة النبي عليه الصلاة والسلام waxa uu si gaar ah ugu hambaliyeynaya xishoodka inankii uu sadaqa u ahaa ee Uthman ibn Affan Allah ka raali noqdo waa khulafada kamid ahaa markaasaa nabigu waxa uu ala astahi min rajulin tastahihi al malaa'ika miyaanan ka xishoonaynin waan ka xishoonayaa nin malaa'iktu ka xishoonayso Uthman malaa'ikta ka xishoota wuu xishood badnaa deanuna waan ka xishoonayaa والحياء شعبة من الإيمان نبي عليه الصلاة والسلام مال مالمها كم إذا باوحوا أركي حديث بخاري بوكو سجيه نين رير أنصار هذا ولدي رير مدينة ولا الكيب الله الله وحو كعنانا يا حشوتك سيدتك قاركود وهذا أركيو ورما دمر با ما محمحوية حشوت بدنا سيدرون بولية وعنانا يا مركن نين كيبو النبي وكدعيه وحو كيري دعه فإن الحياء من الإيمان ورا ذا اسكده حشوتك إيمانك كم دي هاي عناننا اسكده معناها وحوي حشوتك وحي حن لقى حشوده لكن شيء حقه ويدينتيس يكون دقن كيس يكون فانديس isaga lagama xishoodo حديث كلام مسلم كسغنا النبي waxa uu الحياء خير كله xishoodku dhamaantii waa khayr wa xishoodka wanaagsan الحياء لا يأتي إلا بخير بخاري بكسوغين حديث كاسنا خيركو حشوتكو خير بكانا وحبا يان لا اسكو عيباني يان لا اسكو عنانني حشوتك وحي حن لغا حشونايا اذا marka arintaasina xishood la'aanta ama xaaraanta in loo arka ma aha firfircoonaan iyo ilbaxnimo iyo fariidnimo ma aha laakiin wixii xaaraana waa in laga xishoodo dadkuna ay ka gaabsadaan qofka muslimkii karaam uu leeyahay xurm uu leeyahay waa waxyaabaha qadarinta keena inay qoysku isku duubnaadaan markuu ka yarina ka weyneeyo ka weynina ka yar u naxariisto saynu xusi doono waxyaabaha muqawamaadka waxa kamid ah rifq iyo raxma in ay taalo goobtan dabacsanaan iyo naxariis ilaahay baa ku amaanay nabiga laqad jaakum rasuulun min anfusikum aziizun alayhi ma anitum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رفق وين دبعسناني تالو وأضيق وبدكي أريد أود دبعسين يدنا sidoo kale ubadkuna waalidka saas oo kale ehelka saas oo kale dad debacsan oo subkan oo isu subkan waa inay yihiin Aisha waxay leedahay ma khuyira amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markastoo laba arrimood la door galiyo ka dabacsan buu dooran jiray waxa Aisha iyadoo ka waramaysa dhaqankii nabiga calayhi salaatu wassalaam maalin ay qof yara huruuftay buu nabigu la hadlayo wuxuu ya Aisha fa inna Allah ya Aisha urfuqi fa inna Allah idha arada bi ahli baytin khayran adkhala fihim ar-rifq hadithkaas saxiixa صحيح ترغيب كسوغان عائشة مركو إلهي قويس لدونا خير أفيرصو dhexdooda wuxuu soo galiyaa dabac sanaan
aabbo hooyo walaal edo habar yar xabiibi erayadaasaa isweydaaranaya laakiin tii aynu odhan jirnay nin iyo gabadhii col xaaskiisu colna maaha nabadna ma aha dee maxay yihiin haddaa waa yacyacoode wax labadaa u dhexeeya colna maaha nabadna maaha haddii la idhaha inaanay nabad ahayn unbay u badanta marka rifqiga shayga la idhaahdo iyo dabacsanaantu waa waxyaabaha koriya ee khayrka u yeela sidaa nebigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam qoyska xadiid kale oo markaa isaguna saxiixa fi ladab almufrad ku sugan waxaa min xadiidi caaisha nebigu waxau ihi ina allaha yuxibu arifqa fi lamri kulli ilaahay wuxuu jecel yahay arrimaha in dabacsanaan lagu daro dabacsanaan iyo dhowrid in arrimaha lagu daro ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala jecel yahay wixii uu ilaahay jecel yahay inaynu inaguna jeclaano weeye markaynu walaalayl ku soo dhowaano muqawamaadka iyo asaasiyaadka qoyska gundhiga waa laba arrimood bay ku soo ururayaan marka u horeysa labada qof ay nolol wada bilaabayaan ilaa waa shuraako dad iyo duunyaba iyo adduun iyo aakhiraba way ku shuraakoobeen ilaa aakhiray wada soconayaan labada qof markay noloshaa dhisayaan waa in isdoorasha jirto oo labada qof ay isdoortaan iyadana diin iyo waxaa lagu dooranaya akhlaaq isagana diin iyo akhlaaq fadfar bidaati diini buu nebigu xadiidkii saxiixaynka ruuxa dumarka ahee diintana ku liibaan isagana sidaasoo kale unba xadiidkii tirmidi ee xasankaa nebigu waxau ihi qof diin iyo dabeecad wanaagsan li markuu idiin yimaado dee dumarka siiya oo inanta u guuriya iyadoon la odhanaynin lacag muxuu haystaa baasaboorku haystaa waa caynkii qoladee buu yahay yuu yar yahay mise uu weyn qofka ha la eega diintiisa iyo dabeecaddiisa buu nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waa shayga lagu miisaamaya marka labadan qof waa in isdoorasha jirtaa oo duduucis iyo dabakariix iyo in la isku qasbo aanay ahayn oo raqbad iyo abateed iyo doorasho iyo jacayl waa inuu meesha yimaada oo qofkii ha dhowto aanu ku marmarsoonin kuma baan doonaynina waa la igu kaa qasbay iyo waa la igu kaa duceeyey taasi waa qodobka labaad ee intaa horeynu soo sheegnay tobaneeyadaasha ku soo ururayaa waxa weeye an yacrifa kullu minhuma alxuquuqa walwaajibaat labadooda mid waliba waa inuu gartaa maxaa waajib saaran muxuuse isagu xaq leeyahay ooridu waa inay garanaysaa ninkeeda maxay xaq ku leedahay oday waa inuu garanayaa xaaskiisa muxuu xaq ku leeyahay maxaase isaga lagu leeyahay waa casharo u baahan markay isguursadaan labadan qof inay qaataan oo sidooda ay u qaybaan oo ay dhaqan geliyaan mararka qaarkood baa waxaa dhacda qofku inuu qofkan kale ku qabsado waxaanu xaq ugu lahaynba waxaanu xaq ugu lahayn ama uu dafiruu diido wax waajib loogu leeyahay taasina waa arrin qoysku inuu sii jiro sababu noqon karta ilaahay baa wuxuu uhi walahunna midlu aladii calayhina bilmacruuf walilrijaali calayhina daraja labadii qof inay xaq isku leeyihin baa ilaahay uu tilmaamaya ragguba mid dheeraada ha lahaado darajatu takliif bay u badantay waa kuwa idhaahda culimadu ninkiina xil baa saaran ooridiina xil baa saaran xilka raggaase sii weyn xagga xurma ahaan waa laga yaabaa mararka qaarkood laakiin xilka raggaa sii badan الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وحلكي صارنا بإلهي وشاء دمرك حلكي صارنا يهوشو تالينا وحر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ودمرك يقول أقبل كان يا إلهي وكو أماني محا قرآن كو شيء يا الرمان سداد رادد وعشراء آذو بهاني لو دراسي xuquuqda qaar ka dhaxaysaa jirta iyo qaar raggu ay gaar u leeyihin oo ninku gaar u leeyahy iyo qaar xaasku ay gaar u leedahay iyo qaar ay caruurtu labada waalid ku leeyihiin ama labadooda waalid hadday la joogaan ay caruurtooda xaq ugu leeyihin maalan tusaalun waynu dadejinaynaaye xuquuqda ay xaasku ninkii ku leedahay waxaa ka mid a meherkii mar alla markii la meheriyey ee la guntay ayay meher yeelatay caqadkaa xalaalaynta ah ayaa waajibiyey waaatu nisaaa saduqaatihina nixla
ilaahayna geedkii ragga la odhan jiray wuxuu faray inay dumarka siiyaan xaqooda oo meherkaas waxay xaq u leedahay nafaqadii waynagaa soo akhriyeen liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq bima aataahu allah laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusra aayaddaa ilaahay wuxuu kaga warramaya qofku wuxuu haya inuu ehelkiisa siiyo waa raggii haddii arrinku adagina ilaahay baa kuu dabcin doona ee waxba ha ku laxa jeclaabinoo ha ka haysan waxaa ka mid oo raggii lagu leeyo xaasku ay leedahay xusnu lcishra inuu si wanaagsan ula dhaqmo oo qofkan qalbigiisa iyo dareenkiisa iyo moralkiisa iyo jacaylkiisa iyo intaba inuu ilaaliyo wacaashiruuhunna bilmacruuf ilaahay baa amar ragga siiyo wuxuu si wanaagsan ula dhaqmo dumarka si wanaagsan ula dhaqmo waa arrin dhaafsan galmo iyo gasiin iyo gogol iyo dhar iyo dhuun iyo waxaa way ka dheertay waa qofkan oo lala noolaado fi lafraaxi waalaxzaan murugada farxadda la isla jaan qaadi karo waxay xaq u leedahay cadaalad haddii dumar uu wada qabo mid ka badan waxay xaq u leedahay tarbiya oo qofka ninkii inuu tusaale wanaagsan u noqdo ooridan markuu soo guursaday uu dhaqanka wanaagsan iyo cadaaladda iyo runta iyo cibaadada iyo diinta iyo cilmiga iyo arrimo inuu ku rabeeya waxaa laga yaabaa dee inay ninkeeda eeganayso waa inan cusub imikay soo biirtay isagii baa dib u dejin ku samaynaya markaa siduu kolba noqdaabaa laga yaabaa inay iyaduna noqoto markaa waa inuu qofkii hormuud u noqdaa oo si fiican u rabeeyaa difaac baa xaq loogu leeyahy difaac usradiisa ciddii dulmiyeysa cirdigooda iyo sharaftooda xudhimaysa ku soo duulaysa shisheeye sokeeyaba waa inuu difaaca isaga xaq lagu leeyahy silatu raximiha qaraabadeeda inuu xidhiidhiyo ayaa xaq loogu leeyahy oo aanu odhanin maxay ahaan qoladani waa aabbaha iyo hooyaday dee reer naag baa kaa raacda baa la yidhi maxay iga daba socdaan way ku daba soconayaanoo waa aabba iyo hooyo kale kuu soo biiray ehelkeeduna waa ehelkaagii xaggeed kaga tegaysa waaba koox cusuboo kuu soo biirtoo laga yaabo inay kugu biiriyaan waxaan reerkiinuba kugu biirinba arrimaha toddobada waa kuwa u waaweyne xuquuqda iyadu leedahay xaqa uu ninku ku leeyahay haddaynu usoo noqonno shantanaa u waaweyn adaaca aqbalkeen oo dee qoyskan shuraakada ah ee nolosha wada way wada tashanayaanoo arrimaha way hinjinayaanoo hareeraha ay haayaan tasawaju lwaluud alwaduud nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarka guursada ta ninkeeda jecela dhalaysa macnaha dhalmada badan buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa ubadkuna waxyaabaha jacaylka keenay ka midi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنه مدبك كلا نحريس يتشعيل لبضع بسبوها إنه وضع صعلاني نحذو ديالان حفظ بقى لو قبائن حفظ الشيء أقل كيو بحيو أرساقد دي بودون حلاشة هيدو بعد كي برفكو مريا حلكا علوص باصارا إذا حفظ بقى لقول لي حافظات للغيب بقى لهو markaa nafteedii bay ilaalinaysaa ubadkii adduunkii aqalkii amaaladii bay ilaalinaysaa tarbiyat alawlaad siduu isaguba rabaayadda u qaabilsanaa qaybtiisa iyaduna waa madarisad dhan waa tii ubadka rabaynaysee soo saaraysa inay iyaduna sidaa ay u dhashay ay ugu rafaaday waa inay caqligooda iyo caadifadooda caqiido wanaagsan iyo cibaado ilaahay ku soo kabcisaa caruurta markaa tarbiyada ubadkana inay tuurtay ka dhaqaajiso xaquma lahayn inay qaybtii kaga aadanayd soo rabayso silatu ahli waxa iyaduna sidoo kale ehelkiisa inay xidhiidhiso oo aanay odhanin hay tusin hooyada aabbaha hay tusin reerkiina hay tusin anigu waxaan rabaa nin aan aabbiyi hooyo midnaba lahayn iyo wax daba socdo toona ha odhanina ilaahay waxaad ugu cibaadaysataa oo aad ilaahay ugu dhowaataa samafalka aad ninka ehelkiisa u samafalayso markaasuu jacaylkii uu adiga kuu qabay iyo farxaddii iyo nasashadii uu kugu nasanayay wehelkii markaasuu badanaya ragga qaarkood baa laga yaabaa inay idhaahdaan xaasku waa laga yaabaa aniga iima dara laakiin ehelkayga u fiicantay mar hadday ehelkayga u fiican tahay ama ubadka u fiican tahay anigu waxaan doonaba aan ku qabe waan u samrayaa iyaduna saas oo kale marka waa in si guud marahun baynu u samaynay ama aynu u dadajinay
xuquuqdaas baa ugu muhiimsan kuwa ay ninka iyo xaasku isku leeyihiin istimtaacii baa isaguna ka mid oo labadooda ka dhaxeeya oo midibo kan kale inuu asturo oo galmadii iyo raaxadii ka dhaxaysay inuu midibo ka kala asturo waxyaabaha la isu guursadaabay ka mid tahay gudashada hamadu marka inaan hagrasha imanin oona iyaduna diidin isaguna aanu diidin oo labada qof raaxadooda ay qaataan sharcigu u xalaaleeyey ilaan maqaasida guurka laga leeyahay iyadu waa 10 kale waa in la xaqiijiyaa xuquuqdiina waa ka mid marka labadan arrimood u dambeeyay labada qof inay isdoortaan xuquuqdana ilaaliyaan muqawamaadka hore inuu soo sheegnay waxyaabaha asaasiga ah labadaas ay soo hoos galayaan